waan salaamay maalinteeda waxaa sameynani ardaydeeda oo dadka waaweyn ee maamooyinka dood ku saabsan qofka iyo inuu qorshe leeyahay khaasatan qorshe oo lacag ama budget planning wax la dhaho haddaa shaqaysid iyo haddaad shaqayninba waa inaad leedahay qorshe aad ku maareynaysid qarashka kusoo gala bishaas haddii lagu biilo oo aad ii sheeg la biilay tahay haddii aad tahay hooyo shaqaysato waa ina wax walba ku qorshaysan yihiin marka doodii wax badan baa ku falanqeynay laakiin waxyaabaha aan kasoo qabtay waxaa ka mid ah in maamooyinka badankood ay dhaheen dee maxaa uga baahanahay in aan lacagta bishii aan qaadano ama biilka aan qorsheyno waxaas waxay dhaheen waa risaaqad xumo iyo ciriiri iyo wax aday si negative ay uga jawaabeen ma fahamteen ayaga u arkaayo in qorshe la sameysto inay wax xun tahay marka anigana qodobada aan notgareeyay bay ka mid ahayd qorshaha waa muhiim inaad qorshe leedahay waa muhiim adduun iyo aakhira inaad wax u qorshaysto waa muhiim maalinkaad inay kuu qorshaysanta waa muhiim maamooyinkii waqti dheer ay u qaatay inaan ka dhaadhiciyo qorshaha wax xun ma ahan in la xisaabtamo oo wax walba xisaab lagu sameeyo ay ku socdaan wax xun ma ahan negativity-ga ayaga ama siday ka aaminsan yihiinna cabaar bay ugu qaatay inaan ka dhaadhiciyo inkastoo ugu dambeyn ila qaateen xisaabta in si xun ama si qaab daran loo xisaabtamo unbaa xun ma ogiin laakiin inaad qorshe xisaabeed aad samaysatid wax xun ma aha koley waxaan aaminsanahay in dad fara badan oo maamooyinkaas la qaba ay jiraan ay leeyihiin waayo loo xisaabinayo waxa intay kusoo galaan siday yihiin ama siday kuusoo galaan maa u isticmaasha ilaahay baa ku siiyey iyo qorshe iyo waxaas maxaa looga baahanya iska noolow walaado bini aadan baa tahay caqli baa leedahay ilaahay baa caqli ku siiyey ilaahay sababtoo caqli kuu siiyen waxay tahay inaad ku xisaabtantid maaha inaad sida xayawaanka u noolaato qorshaha wuxuu kaa caawinayaa maalintan isbuucan bishaan maxaa kuu hirgalo ood qabato faa-iida adduun iyo aakhira iyo maxaanan kuu hirgelin oo faa-iida adduun iyo aakhira dan isbarbardhigaa sameynaysaa wixii kuu qabsoomi waayo ama wixii aad ka habsaantid de waxaa isku dayaysaa waqtiga kale oo ilaahay ku siiyo oo cimrigaas oo ku gaartid inaad ku hagaajisid laakiin inaad iska socotid dee ad xaybaan matid ari matid lo matid geel matid iyagaaba yaqaanaan meesha u socdaan iyo meesha wax ka raadsanayaan marka warka gabagabadiisa waxay tahay in qof walba uu qorshe sameysto qorshahaas oo naftiisa iyo adduunkiisa wax u taraayo maalintaada inay kuu qorshaysan tahay adduunyadaadii